السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan meel kasta joogtaan. insha Allah muuqaalkan waxaynu ku sharxi doonaa waxa loo yaqaano abortionka ama dilanka ilmaha. waxaynu ku eegi doonaa marka hore waxa uu yahay dilanka ilmaha iyo sidoo kale noocyada loo kala qaybiyo. aynu ku bilaabana marka hore waxa loo yaqaano dilanka ilmaha. wuxuu yahay dilanka ilmaha ama dhiciska waa markuu ilmaha uu si lama filaan u soo dhaco iyadoo waqtigii uu ilmaha uu ku dhalan lahaa aan la gaarin. inta badan dhiciska ilmaha ama dilanka ilmuhu wuxuu dhacaa 6 bilood ugu horeeyay uurka, wuxuuna ugu sii badan yahay 3 bilood ee ugu horeysa. noocyada kala duwan ee loo qaybiyo dilanka ilmaha way kala duwan yihiin ama waa kala heerar, la tacaalidiisana way kala duwan tahay. hadba waxay ku xiran tahay xaaladda ay ku sugan tahay hooyada. sidaa daraadeed waxaa muhiim ah hooyada inay warbixin buuxda oo xaaladeeda ku saabsan ay siiso dhakhtarka ama daryeelaha inta uusan siin talo ku aadan xaaladeeda. haddaba noocyada kala duwan ee loo qaybiyo dilanka ilmaha ama dhiciska, waxaa jira nooc loo yaqaano method abortion. waa dilanka markii uurku jiifta uusan sameysmin ama uusan nooleyn. haddii hooyada marka ay dilankan la kulanto la saaro kombiyuutarka loo yaqaano ultrasoundka amase uurku jirta, kombiyuutarkaas markii la saaro hooyada waxaa minka lagu arkayaa ibida iyo xuubka uurku jiifta oo kaliya. xaaladani waa in hooyada la fooliyo amase la xaaqa iyadoo la fiirinayo inta bilo ay tahay hooyada. nooca labaad ee dilanka ilmaha waxaa loo yaqaanaa treated abortion. waa dilanka markii hooyada ay isku aragto dhiig laakiin minka afkiisa uu xiran yahay. xaaladani waa in hooyada ay nasato oo aysan sariirta kasoo kicin amase aysan sariirta kasoo degin. waxaa laga yaabaa hooyada inuu uurkeeda u badbaado amase ilmaheeda inuu u badbaado oo aysan wax dhiba aysan la kulmin oo aakhirka laga yaabo hooyada inay si caadiya ku dhasho. nooca saddexaad ee dilanka ilmaha waxaa loo yaqaanaa inevitable abortion. waa dilanka markii hooyada ay isku aragto dhiig laakiin minka afkiisa uu furan yahay. dilankan waa lama huraan. hooyada waxaa lagula taliyaa badanaa amase waxay dhakhaatiirtu kula taliyaan hooyada dilanka noocan la kulanta inay dhakhtarka usoo laabato si loo xaqiijiyo in dilankan uu dhammaystirmay iyo in kale. nooca afaraad ee dilanka ilmaha waxaa loo qaybiyaa incomplete abortion. waa dilan aan soo dhammaystirmin oo u baahan in hooyada laga soo xaaqo. tusaale ahaan hooyadii markay ilmaha ku dilmeen minkeedii weli waxbaa ku haray, marka waxay u baahanaysa in laga soo xaaqo. ogow uurka hadduu ahaa mid 10 asbuuc ka badan, hooyadu markaasi waa laga maarmaan amase xaaqis kama maarmi doonto. nooca shanaad ee dilanka ilmaha waxaa loo yaqaanaa complete abortion. waa dilanka dhammaystiran oo minka uu faaruq yahay amase minka uusan waxba ku jirin. hooyadana markaasi uma baahan doonto daawo amase farsamo kale oo markaasi minka looga soo xaaqayo. waana in la baaraa sababta ka dambeeyay dilankaasi. sidoo kale waa inuu dhakhtarku siiyaa hooyada talooyin ay markaasi uga hortagi karto inay dilankan oo kale la kulanto mar kale. nooca lixaad ee dilanka ilmaha waxaa loo yaqaanaa habitual abortion amase recurrent abortion. waa dilanka soo noqnoqda amase caado ah inay hooyada uur kasto ay qaado ay kasoo dilanto amase hooyada inay uur kasto ay qaado ay ilmaha ka dilmaan. xaaladani waa xaalad aada u khatar badan maadaama hooyada ay markaasi uur kasto ay qaado ay ilmaha ka dilmayaan. waxayna u baahan tahay xaaladan in si qoto dheer loo baaro loona ogaado sababta keentay amase sababta ka dambeysa hooyadaasi inay markasta ilmaha ka dilmaan. nooca toddobaad ee loo qaybiyo dilanka ilmaha waxaa loo yaqaanaa septic abortion. waa dilan qaaday caabuq amase infection qaaday. waa xaalad halis runtii waxayna ku dhici kartaa hooyooyinka soo maray kahor dilan aan dhammaystirmeen amase hooyooyinka hadda kahor soo maray dilan. muuqaalkani maanta intaasuu kaegyahay. haddii aad waxun ka faa'iidey laysdi wadaag asxaabta. haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. haddii aad horey noola joogteen laagta nagu dhiirigeliyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.